ma haya anigu ammaan badan waxaan hayaa dhaliil waayo markaad aragto waxa la soo bandhigayo ee isugu faantada ah ee qabaa'ilku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaas huba intay soo bandhigto diyaar baan nahay war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahay baa mise dhaqaaq bay u baahanta reer galmudug laydinkuma garaabayo ciidan intaa leeg baa la keenayaa waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan waa la taagtaagan yahay yaa lagaga tegi iyo sidan hala yeelo maya ma aha anu dadka arrintaa qaba may idinkumana ammaanayo waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan bismi illaahi raxmaani raxiim wabihi nastaciin calaa umuuri dunya waddiin وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء وزارة كحيينك مدحنا دولة حملها كها دولة فدرالك قدوميها قبل كبنادر وفود كاتك سعوتي دولة حملها كها دولة فدرالك شعبك abwaanadii halkan gabayada ka tirinayay iyo qof walba waxaan ku salaamayaa maqaamka uu ku fadhiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan laba mahadcelin u sameeyo midda ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo u soo bannaan baxay inuu hoggaamiyo dagaalka lagula jiro khawaarijta go'aansadayna inuu barta hoggaaminta marba ka dhigto meesha uu markaas dagaalka uu ka socdo aanan isleeyahay waa dariiqo wanaagsan iyo hoggaan saxa oo keeni karaya dhiirigelin iyo ku dayasho intaba midda labaadna waxaan u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo shacabka reer galmudug soo dhoweyntii qiimaha iyo qadarinta lahayd ee ay nagu soo dhoweeyeen magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta dowladda galmudug oo aan u arkayo xilligii iigu dambeysay iyo maanta farqiga u dhexeeyahay inta uu leegyahay oon leeyahay reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa reer dhuusamareebna waad guulaysateen oo intaad hadda haystaan baa idinku sii filan intaa markaan ka baxo waxaa socda dagaal lagula jiro nimankaa khawaarijta markaan dhab u hadlayno dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsisna waxaa inugu furan teleefoonno iyo xidhiidho iyo waxaan jirin oo aad mooddo inaynan weli xor ka ahayn waxa aan sheegaynana ayna dhab inaga ahayn ma haya anigu ammaan badan waxaan hayaa dhaliil waayo waddankani isticmaarkii uu gumaysiga markii lagu jiray maanta ayay xaaladdiisu ka xun tahay kanaana ka isticmaar badan oo ka dhib badan oo qaacidooyinku isticmaalaya dadka uu isku dirayana ay tii isticmaarka ay ka waxaysan yihiin oo kaa waaba la garanayo niman caddaana iyo gaalo cadcadow waxay ahaayeen la yaqaanee kuwa jinsigaa oo kale oo dhibaataday ka shaqaynayaan manaxayaala oo haddana magaca diineed wata ayuu yahay maanta dagaalka lala dagaalamayaa waxaad mooddaa inuu jira gaabis guud oo dadku waxa laga hadlayo iyo ficilku ayna iskeenayn oona islahayn maanta isma lahayn galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa la eg oo dagaalka shabaab lagula jiraayey intuu jiitamo intaa qaadanaya madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada istaydee dhimanna hawshooda la gelayaa waayo
markaad aragto waxa la soo bandhigayo ee isugu faantada ah ee qabaa'ilku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaasoo huba intay soo bandhigta diyaar baan nahay war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahayba mise dhaqaaq bay u baahanta deegaanada hadda labada state ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waa deegaano qabaa'il hub isugu faanaana ayna jirin hub waaweyn la soo bandhigaana ayna jirin dad hub laga dhigay laakiin maanta galmudug markaan ka hadlayno hubkii dawladdii kacaanka ay ka tagtay dagaalka sokeeye oo ku bilowday oo maanta yaala markaad dib u fiiriso qabaa'ilka iyo waxay soo bandhigayaan iyo waxa laga hadlayo iyo dagaalka leeyahay meelablaha la kor taagan yahay kana la kor joogaa midkoodna meesha ma yaalo arrintaa iyada waxaan leeyahay haddii dagaalkaasi sida uu yahay dhab u noqon weydo oo qorigan sumadda leh aad sidan u haystaan horta qoriga dawlad baa iskala way qaadi doontaa qabiilo qori ma lahaan doono dawladnimadaana ka fiican marka intii aad weligaaba lagugu gumaysan lahaa gaarigaaga la qabsada iyo telefoon beena laguu soo sheegi lahaa waxaan qabaa dadku intay dagaalamaan warheeryadii gumaysiga laga hadlayay 60 tanaa ka adag oo ka dhib badan oo diin taabanaysa oo caqiido ka hadlaysa oo ifsaad caami uu ku jira oo wax walba dhibaato ay imanaysaa reer galmudug laydinkuma garaabayo ciidan intaa leeg baa la keenayaa waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan waa la taagtaagan yahay yaa lagaga tegi iyo sidaan hala yeelo maya ma aha anu dadka arrintaa qaba may idinkumana ammaanayo waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan aan ka dhabayno oo aan garanno ciidankaas wiilashaas dagaalka ku jiraay waxay u baahan yihiin waa shacabka sideedabana shacab baa dagaalama dagaalka hadduuna shacabku ku jirin oo ayna bannaanka soo taagnayna ciidan waxba ma qaban karayo intifaadada ama kacdoonka shacabka tusaale waxaa idinku filan maxaakimtu mayna ahayn dawlad dagaalamaysay markii hogaamiye kooxeedyada dagaalkoodu socday kacdoon shacab buu ahaa haba yaraatee ciidan intuu isu yimid dagaal galo oo cid la dagaalamayay ma jiro waxay u baahan yihiin maanta nimankaa khawaarijtii kacdoon shacab oo la iswada dabagalo oo gabadha buskudka iyo waxaan qirayaa cidda ugu badan ee dagaalka ku jirta inay haweenka yihiin saamaanta iyagaad arkaysaayoo buskudkii samaynayo biyo hagaajinayo meesha furimaha ciidanka wax u taga waa iyaga odayaasha garhka gudguduudan iyo kuwa bakooradaha wata iyo kulligood iyo kuwa ganacsatada mid waliba wuxuu leeyahay maya aniga waxaanaa la ii geysaniyo hebel baa la soo wacay iyo hantida warheerihiinaa laysku wada dirayaa maxay canshuurta badana lagaa qaadi kuu taraysaa maxay 22 isbaara kuu taraysaa maxay cabsiintu kuu taraysaa intaasoo dhan waxba kuuma tarayso waxaa ii muuqanaysa arrintaani haddii aan u wada istaagno galab iyo subax baan kaga bixi karaynaa soomaaliya oo dhan aan ku qabanno godadkay galaanna shacabka qof waliba wuu soo sheegayaa oo qof waliba wuu ka digayaa oo qof waliba meeshay joogaan iyo waxay yihiin buu soo sheegayaa qolyaha magaalooyinka jooga iyo kuwa qoryaha haya iyo isugu faantada qabaa'ilka ah wallaahi inay isku kindiraan iyo dhibaato inay idiin geystaan mooye wax kalood ka dheefaysaani ma jiro intaan in leeg madaxweynuhu inuu joogana maba ahaynba waxay ahayd inuu mar hore ka soo tago xamar habeen sii joogo baydhabo tago kismaayo tago dagaalkaas 15 beri in lagu soo afjaro waan rajaynayaa haddana ciidanku wuu dadaalayaa laakiin moralku waa shacabka deegaanada la qabanayo iyo kuwa hadda la qabtayna waxaad ogaataan waxa ugu muhiimsan inuu yahay way isku kiindirayaan oo qabaa'ilkay la hadlayaan oo fariq tasud iyo ku samaynayaan qayb iyo xukun nimankaasi cidna asxaan uma hayaan aan ka wada shaqayno inaan ka wada hortagno waxaan sheegayno inaan ka dhabayno madaxdana iyadoo dagaalka u soo istaagteen aan garab istaagno qabaa'ilkuna waxay isugu faanayaan qabiil walba intay xoraysiya dagaalkay galaan ha ku faaneen ee qori bannaan la soo dhigayaan lagu faan madaxweyne waxaan rajaynayaa in ciidamadana lagu dhiirigeliyo
la garab istaago lagu dallacsiiyo ay u noqoto waxa ay ku jiraan waxa ay tahay wacyigelin iyo ku dhex jiridna loo sameeyo shacabkana waxaan aad ugu muuqanaysa in sida ay yihiin odayaasha iyo ganacsatada iyo kulli intii la kaxeeyo meelaha fariimuhu ku jiraan intay tagaan nin waliba uu ka muuqdo oo nin waliba isagoo meesha jooga miidiyaha uu ka hadlo oo uu hadlo uu sheego mowqifkiisa uu caddeeyo oo dadka moral la geliyo markaa kuwa bannaanka joogan inta xoolaha la ururiyo magaalooyinka la qabanayana kaalmo bini'aadanimo iyo waxaan bannaan ka barin waxba inooma taraysee ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo danta guud ee dadka intaba aynu ka tashanno oo inna waan isku tashanno oo waxaan geyn karna aan geyno aad iyo aad baan uga mahad celinayaa guud ahaan marka laga soo tago iscanaansiga sida wax u socdaan waxaanan ku dhiiri gelinayaa axmed qoorqoor iyo reer galmudug inay iswada raacaan oo isagoo horgalow ka noqdo oo tuutaha la qaato oo dadka la dhex socda hawsha aan sidaa u gallo annaguna middaasaan sugaynaa waanan bilaabaynaa dhinaca iyagana waan ka bilaabaynaa aniga cabdicasiisna oo annaguna ma joogi doonno laakiin aan isku tashanno wax walba oon cid kale ka sugno waxba inooma tarayso ciidan iyo calafeenna waan isku tashanno aad buuna u fiican yahay xaqiiqatan madaxweynuhu sida uu fakerayo tadxiyada uu samaynayo adaa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu